بسم الله maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha qolka shirarka waxaa ka dhacay shirkii gudida diyaarinta maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo gudidaas oo 2 usbuuc ka hor uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gudidu maanta waxa ay kulankooda caadiga ahaa warbixin ka siiyeen ra'iisul wasaaraha halka hawsha uu marayso hawsha runtii oo aanu si weyn u dardargelinay gudiyana u qaybinay gudi hoosaadyo shaqaynaya gudida maamuuska gudida amniga gudida warbaahinta iyo wacyigelinta gudida bilicda iyo qurxinta magaalooyinka iyo gudiyada isboortisyada iyo hoos ahaan gudiyo hoose ayaa maanta waxaan warbixin weyn ka siinay halka wax marayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaruhu markuu warbixinta dhageystay iyo ilaa hadda waxa noo qabsoomay iyo waxa noo qorshaysan 10 maalmood ee soo socota waxa uu runtii soo dhaweeyay shaqada gudidu hayso waxaanu ammaanay kartida iyo sida ay u abaabulan tahay gudidu iyo inta muddada yar ay jireen shaqada ay qabteen waxa kula dardaarmay inay si laban maadaama waqtigu kooban yahay waqtiga harayna yar yahay shaqada la qabanaya inay tahay shaqo aad weyn waxaan kaloo rabnay inaanu munaasabadahan keenno fikrado cusub iyo dabaaldegyo cusub iyo soo dhaweyno cusub oo aan hore u dhici jirin aad buu ra'iisul wasaaruhu arrinta lafteeda u soo dhaweeyay waxaan rajaynaynaa sanadkan inay noo qabsoonto munaasabado qaran oo aad u qurux badan maalmaha xorriyaddu waa maalmaha ugu waaweyn sanadka aynu ku faano 26 Juun iyo 1 Luulyo waa maalmihii aynu xorownay waa maalmihii calanka Soomaaliyeed la taagay ra'iisul wasaaruhuna runtii taas u dhiirigeliyay kulamaduna way sii socon doonaan waxaanu nagula dardaarmay in aanu qaybaha kale bulshadana la kaashano howlaha iyaga wixii caqabadee soo cusboonaadana aanu mar walba ra'iisul wasaarahan uu noo diyaar yahay inuu nagala shaqeeyo wixii marba nagu soo kordhay culaysa aad baa u mahadsantihiin intaasaan rabay inaan idinku wargeliyo shirarka gudiduna si joogtaa bay u dhacaan maalin dhaaf gudi hoosaadyadu si joogtaa bay soo arkaan guul iyo barwaaqaan u rajeynaya shacabka Soomaaliyeed dabaaldeg weyn ayaa inoo soo socda billahi tawfiiq